السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا صومالية ميل والبود أدونك دعالي سكا جوجتان ولكن محمد إبراهيم عمر ومر لبات iyo martaxaad bidin haya barnaamijyo aad u xiiso badan barnaamijka hadda aan rabo inaan meeshan ka soo jeediyo waxa weeye horta channelkii waxaan u bixinay xaldoon iyo xikmad xaldoon inaan xal u raadino problemska and issueska jira ee Soomaalida isku hayaan iyo xikmad oon ugu talagalnay in aan kusoo gudbino si aqli ama xikmadi ay ku dheehan tahay sababtoo ah social mediaha maanta aan dhex taaganahay wuxuu u batay social media laba garab u kala jaban qayb dad la jirta iyo qayb cid kale la jirta at the same time aanan warka ay soo gudbinayaan uusan ku dheehanayn baarid iyo xaqiiqo uusan ku dheehanayn ay u badan tahay propaganda iyo wax aan jirin ama waxaan teamka kale aan qabanin marka waxaan isku dayeynaa inaan keenno barnaamijyo aan soo baarnay dhaxdhaxaada ama sheegaya xaqiiqda meesha ay u dhowdahay inagoon cidna ka cabsanaynin cidna ugu aabayeelaynin waxa aan halkan ka sheegayno waxaa kaloo idin xaqiijinaynaa in aynan cidna ku xirnayn ama cid aanan lacag ka qaadanin oo aan ahay journalist freelance ah una leh aqoon in uu soo gudbiyo fikirkiisa iyo aqligiisa haddaan iskiin baro mar labaad aniga waxaan ka soo baxay jaamacad ku taala dalka Canada ugu yaraan 20 sano hadda ugu dambeysayna waxaan deganaa dalka Canada waan gaaray Africa waan tagay laakiin most of the time Africa waan ka maqnaa hadda xilliyadii ugu dambeysay marka waxaan rabaa in wixii aan ka baranay reer galbeedka ee aqoon ahayd dhaxdhaxaad ahayd liberalism ahayd fikir saliima ahayd inaan soo dhex dhigno ummadda Soomaaliyeed si aynan u raacin qayb gooni ah oo aan loogu tirnin hal dhinac at the same time aynan noqonin dadka hadda hadla ka hadla social media u badan in ay aflagaadeeyaan ummadda ama madaxda Soomaaliyeed marka halkan waxa ugu imaanaysaan insha Allah waxa weeye xikmad asluubaysan haddii qof la dhaliilayana ayadoo qurux badan oo laakiin la sheegayo runta baan soo gudbin doonaa marka ku soo dhawaada channelka muxuu ahaa Maxamed Ibrahim Cumar uu leeyahay ee la yiraahdo xaldoon iyo xikmad waxaan rabaa marka walaalayaal in barnaamijka aan toos hadda kadib aan u soo galo barnaamijkan soo gudbiyo mar walba kadibna wixii warbixina aan ku kala qaadano commentska haddii aadan weli subscribe noo dhihin waxaan ka rajeynaynaa inaad subscribe noo dhahdo oo channelku u noqdo channel informationska aruuriya xogta Soomaaliyeed aruuriya u noqdo Soomaaliya sida Google uu adduunku u yahay oo kale ay ka soo raadsadaan xogaha muhiimka ah ee biyo kama dhibcaanka ah danta kaliyan leenahay ujeedada kaliya ama danta kaliyan leenahayna waxa weeye in ay Soomaaliya horumarto barwaaqo noqoto ummadeedana ay ka sareeyaan ummadaha kale ee caalamka ku nool waxaad ogtihiin walaalayaal wadanka China la dhaho waxay wax ku gaareen ama ay horumarka ku gaareen waa ismaqalka ismaqlaan iyo iyagoo ka shaqeysiyay technology-ga iyo cilmiga ay aruuriyeen ee adduunka laga aruuriyay marka waxaan rabnaa in saanay tiri iyo saanu yiri iyo qabiil hebel waay iyo intaan ka baxno runta aan isu sheegno wixii daacada Ilaahay dadka la ogyahay ummadda dan u ana meesha la soo dhigo wixii aan dan ahaynna iyaduna la sheego marka waa maasantiin clipkan intaas aan ugu talagalay xikmad iyo xaldoon TV hala subscribe gareeyo hala share gareeyo like iyo commentiga lagu dadaalo si aan ugu dhiirano inaan banaanka soo dhigno danaha Soomaaliyeed meel walba ay Soomaaliya ku nooshahay waa idin salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh